الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، waxaan maraynaa marxalad aad u adag. waxaan maraynaa xaalad adag. waxaan ugu dul socdaa awoodda Ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo aayadihiisa qaar ka mid ah. waxaa inoo muuqda oon maalin walba la noolahay asxaabtii iyo ahalkii iyo dadkii iyo aadamihii oo si wada jira u dhimanaya, koox koox isu raacaya, la aasayo. qubuurta mid kastood booqato maalinkiiba waxaa la aasayaa tomanaal baa la aasayaa oo isugu imaanaya. in badanoo ka mid ah ma soo xanuunsanin, si kadaa bay u dhimanayaan. waxaa waa la qamanayaa, waa dhimanayaa. laba beri buu yaro xanuunsanaa, waa dhimanayaa. si kadaa baa loo la-anayaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa inuu addoommadiisa tuso, ama ha ka garaabaan ama yaysan ka garaabin, laakiin awoodda ilaahay in la tuso si ilaahay u cabsi geliyo tabaaraka wa tacaala oo u baraarujiyo. sida allah qur-aanka kariimka inoogu sheegay, wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa. aayaadka iyo calaamadahaas ilaahay dirayo waa cabsigelin. ilaahay addoommadiisa uu ku cabsigelinayo, waa baraarujin. geerida kadada ah oo dadku ay saa u dhimanayaan, nabigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu inoo sheegay inay ka mid tahay calaamaadka ku tusaya inay qiyaamadii soo dhowaatay, adduunkanina gebagaba yahay. waxaa ka sugan inuu yidhi nebigu sal alla alayh wasalam, min iqtiraabi saaca, qiyaamada soo dhowaanshaheeda waxaa ka mida an yadhara mowtu lfaj'a, inuu faafo oo muuqdo geerida kadadii. addoommadu markay ilaahay caasiyaan, oy ku kufriyaan, oy ilxaad ku kacaan, oo dhulka ilaahay dunuubta ku badiyaan, oy daacadiisa ka haajiraan, oy kibraan oo wax ismoodaan, ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala dharbaaxaya, wax ciqaabaya. saas daraaddeed baa nabigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi, mowtu lfaj'a akhdatu asaf. geerida kadadiihi waa qabasho ka timid ilaahay cadhadiisa. dabcan fujaarta, dadka xunxun iyo gaalada, in badanoo mu'miniinta ka midana shahaado iyo dembi dhaaf iyo naxariis bay u noqonaysaa. oo musiibadu markay timaaddo, sababay ku timaadaba, ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa mid xun iyo mid fiicanba way wada gaadhaa, sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala. nebiguna axaadiistiisa inoogu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka cadho ilaahay oo laga cadhaysiiyey oo dunuub la galay, qabasho ka timid weeyaan buu nebigu yuhi sal alla alayh wasalam, iyo cuquubo ka timid geerida kadadiihi. yaa sidaa yidhi? nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh, alladii laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa. waa wuxuusan faylusuuf ka warrami karin, waa wuxuusan aqoon-yahan ka warrami karin, waa waxayna khubaradu waxba ka sheegi karaynin. xanuunka daahirkiisa iyo waxaan yimid bay waa la dhimanayaa, asbaabta loo dhimanayay wax ka sheegi karaan, laakiin xagga rabbi waxa ka yimid cilladiisa iyo xikmaddiisa waxba kama yaqaanaan. waxyi kitaab alle iyo nebi moxamed sal alla alay slam iyo rususha hadalkooda
oo ilaahay ka warrama tabaaraka wa tacaala iyo xikamkiisa unbaa wax ka sheegi karaya marka waa akhdatu asaf ama akhdatu asif maxaa loo baahan yahay marka sidaasoo kale markii ay xaaladdu u jirto oo dadku dhimanayaan oo la geeriyoonayo si jamaaciya loo socdo waxaa loo baahan yahay in aynu talagalkeeda yeelanno waxaa loo baahan yahay inaan diyaar garowno waxaa loo baahan yahay inaynu ku talagalno ka qabriga maanta la geeyey eed soo aastay ka ku xiga miyaad noqon doontaa mise lama yaqaano xaggee iyo sidee iyo sababtee iyo goorma waa hawl ilaahay khaas leeyahay laakiin waxaan hubnaa oo xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah ama daah ama aad ha daahdo ama ha soo degdegtee inaad geeriyoon aad adduunkan dhaafayso xaqiiqo la hubo waaye kullu nafsin daa'iqatu lmowt maxaa kula gudboon marka lagu xusuusiyo lagu tuso saaxiibkaa tagay oo kii kula fadhiya tagay oo يعني وحوي dadkaagi tageen oo inta taqaan la soo sheego adduunkii socdo ya ninkii loo xiirayo ya ninkii qeyrkii loo xiiro soo qoyso ninkii qeyrkii tagayo iskeen maxaa ku laaban wala tamutunna illa wa antum muslimun udiyar garooba geerida hadhimanin ilaa adigoo ilaahay u hoggaansan mooyee hadhimanin ilaa adigoo tawxiidsanaya mooyee hadhimanin ilaa adigoo ilaahay ateecaya mooyee hadhimanin ilaa adigoo ilaahay raali gelinaya mooyee walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun istiyaariya oo u diyaar garooba xaqiiqada biyo kama dhibcaanka ah waxaa ka mid ah waxyaalaha laynoo jideeyey ee marxaladan oo kale loo baahay inaan ku dadaalo khaatumo wanaagsan inaan ku dhimanno in hadalkaaga kelimatu tawxiid ugu dambayso laa ilaaha ila allah inaad camal wanaagsan oo ilaahay jecel yahay adoo haya aad ku geeriyooto nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi ruuxu adduunka wax kastoo uu noloshiisa soo ahaa ama soo samayn jiray meesha ugu dambaysa waa khaatumadiisa maxaad ku dhimatay ma gaalnimo ma islaamnimo ma taaco ma macsiyo ma khayr ma shar maxaa kuugu dambeeyood ku geeriyootay miisaanka hawl culus bay ku leedahay saas daraaddeed baa aayaddu waxayna leedahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna xaaladda aad dhimanaysaan ku geeriyooda idinkoo hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan tabaaraka wa tacaala nabigeennana waxaa ka sugan sal alla alayh wasalam inuu yidhi ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la rabo wuu shaqaalaystiistaa istacmalah ilaahay wuu dirsadaa shaqaaluu ka dhigtaa hawl buu u dhiibtaa markaasaa waxay yidhahdeen kayfa yastacmilu see buu u shaqaalaystaa maxaad ka wadaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam wuxuu waafajiyaa camal wanaagsan oo khayr ah intuusan geeriyoonin marka lagu soo dhow yaho xaaladiisu soo dhawaato waqtigiisu dhammaad yahay ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala hanuuniyaa khayrkaa loo diraa salaaduu badiyaa soonkuu badiyaa sadaqaduu badiyaa khayrka amridiisa iyo reebidda xumaantuu badiyaa wuu towbad keenaa wuu soo noqdaa qur-aankuu ku hanuunaayoo qaabilaa asagoo wanaaggaa iyo khayrkaa ku dul sugan ayay tiisii u timaadaa allah baa khayr la damcay ilaahay baa khayr la doonay xadiidka waxaynu ka fahmaynaa addoonka haddaan khayr lala doonin asagoo shar iyo xumaan ku dul sugan ayuu geeriyoodaa oo tii ilaahay u timaadaa innama alumuuru bilkhawaatiim khaatumada hagaajiso ilaahayna u laabo tabaaraka wa tacaala xaaladan oo kale waxyaalaha loo baahaya waxaa ka mid ah oo muhimka ah
إن الله بديو استغفارتا إيا توبدا لأن توبدا إيا الدنب دافع ويديسك إلهي أولا بديو بلايا صوصعتنا ويكهر تكتا بلايا الضومدا مركا هيستنا ويقادا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا انت وقتك كغاريسو نولل وناكسن بو إلهي كن نولين يا حداد بديسو استغفارتا إيا توبدا وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وقال ذي إلهي ما عذابيو انت أي دنب داف ويديسانيان ساستراد بديع استغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه بدي عرب كاكا كبدت وحاكلته مهمة ما دام أدركت إن ليس قلي هوشل إن عياها كرنا عيسو صاحبدا للتغي قرابدي لقاتي انت تقاني إن هذا أقول نبا أي سعودين هذيك أنا واتكو حكتاي دردارا كتقر نبي قال وحكى صلى الله عليه وسلم إنه يري روح مسلم أو وحلا دردار ما هيا وحود إنه دردار مربو هيا لبح بين أي مريان حقي سماها قرن معها إني سيدا كمران وحلا دردار منا أكتيس أيالان هذا رؤوسا دردار من قرن معها حقنا معها وحلا دردار ما أيا أكتيس أيالان إنو دردار مو دون يا لكن ما دردار من هبينا مري تضباديا مري بلا مري سندا مري دردارا ملح قارهان وحل الدونية إناد كدر دار أنت هديتها حقوق بني آدم دايما لقول هي ظلم بعد قشي مظالم أمانوين بعد هيسا إناد تبرعات يا صدقات إسكهر مريسات ربطايو دردارنتو دردارن قر لبها بين مركز سومر تبا كن نقو ديبو فيري ديبو وين باينا جاهزت ولا دمانا يا وحبا ما قرنا روح الحقوق ديسي ما قرنا تيلقولها ما قرنا ديمه ما قرنا مظالمتي الظلم جو قال ما قرنا سو قبرك لوجو مسوق يا مرك سيدادي لقاقا سو لوجو جليو قدك لوجو جليو أيا واحد ضيعدي قرط كوس ورنتهي وانا لوجو هيستا سيداس درادي دردارن كإسكا قرا مرخاتي أسمية صاحب دين أديبا ميل آمن الدقا ريرها أديب وهكذا سياد النبض قشو نبينا مركو سيد عليه صلوات ربي والسلام عليه حالة أكور رمي أمدي سأقدق يواد قرنيسا سيداس درادي دردارن كقرا دردارا كقرى قات حديث كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قارب إلهي هنتسي تبارك وتعالى أو حورب بدن هيستا انتو نولا إنو حوريس الصدق يستوحى أدي ذي بخيل نمو غيري دي سكدب إنو صدق يستو دردار منا وحا أدي ذي الشيطان إيا النفبا قفيي هنتدو كتغي واتاجر السيدادي أو قبرق أقلي عرورتيسي حاسسكيسي با اسكو قبصدي كوب شاها inay uga sadaqeeyaan waa diideen wariya iskale dayacaas soo adigu mali intaad noolayda waxa ku diiday bakhaylnimada iyo lixjeclo kugu jirta haddaad dardaarmi lahayd oo geeridaada kadib wax baxsan lahaydna waad ka gaabisay oo maadan qorin in xoolihii dambigoodu adiga ku saarnaayeen la isku laayo
oo koob shaaha lagaaga soo sadaqayn waayo waad istaahishaa markaa war isdaba qabta war dardaaranka qora war dardaaranka ka taga war xuquuqda iska ilaaliya war duyuunta qora war bini aadamka madaalimta aad ku samaysay hadday tahay wax gadaasha laga bixin karo qor si aad u badbaado akhiiran xaaladahan aan ku sugannahay walaalayaal waxay mudan tahay inay aad inoo gasho cabsida geeridu yidi diiladii adduunyo jacaylkana aan soo gaabinno wayba gaabatayba inay gaaban tahayna waabad aragtaa maxaa waa lagu qaban berri baa lagu qaban masaadan baa lagu qaban soo gaabi qorshayaasha dheer soo gaabi adduunyadan kula tagtay soo gaabi kursigan aad u dagaalamayso soo gaabi xoolahan aad daba ordayso soo gaabi aafadan ku haysata soo gaabi meel kula gaari mayse sokadeeda lagu qaban doonaaye soo gaabiyo geeridu inay ka sokayso mar walba qalbigaaga ha ku jirto adoo meel fog laacaya baa meel ka sokaysa laga qaban doonaa hasha qadowga laacaysa qadowga sokadiisay qow ku dhacdaa adoo meel fog laacaya 20 sano 30 sano qorshahooda dejisay ileen geeridiina waaba saa dambaba bini aadamku waa wada sida nabigeenuna wuxuu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh in yididiilada dheer iyo adduunyo jacaylku bini aadamka inay la abtirsato oo ninka da'da ah ee sariirta ku urursaday ama haweeneyda da'deed sariirta ku urursatay ee wax walba ka gaboobay wax walba waa ka jilcay wax walba waa ka quustay laakiin laba shay nabigu wuxuu yiri qalbigiisu dhalinyaro ku yahay waa adduunyo jacaylka ay yididiilada dheer waad sii noolaan doontaa maalmaa kuu laaban sannadaa kuu laaban waxaa nabigeennu sawir ku bixiyey oo uu xariiq ku bixiyey bini aadamka yididiiladiisii oo meel foog sii socota iyo asbaabtii keenaysay geerida oo dhinacyaha ka haysa iyo geeridiioo ka sokaysa yididiilada dheer ee meel fog uu sii laacayo nebigu wuxuu ku bixiyey xariiq oo ummadda u sharxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wahadihi alxaqiiqa sidaas daraaddeed walaalayaal xaaladda aan siday tahay ula mucaamaloonno ilaahayna aan u toobad keenno ducadiiyo baryada aan badinno nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay waxyaaluhu ka magangeli jira waxaa ka mida in ciqaabtiisu si kadaa ugu timaado oo ducooyinkiisii waxaa ka mida kama fi saxiix muslim allahuma innii acuudu bika min zawaali nicmatik ilaahu waxaan magan kaaga ahay nicmadaadu inay ii dhaafto iga zuush وتحول عافيتك عافماتك إنو يغوريغو وفجاءة نقمتك عقوبة إنو يغسو كديسو وجميع سخطك إيا عرض دمر إله مغنكاغ إلهي كم مغنكل عذر ذا لستا غيري دقدقة خاتم حمضة حالة حنونات كل متو إلهي أعر توبت كان إلهي أتضرع حالة سهلا ماها آيات ربي تبارك وتعالى أدومدي سؤوت تصي إنه إنه أركيان إلا الله وعلامتك تصي إلهي قدرتي سي أودي عالم كينا قروسا لا يهي قال كيسي ملحد كيسي ما قروسا لا وعاجزين وحبوا وقبوا وينقع ما هي تاجين خبرضو ذي دخاتير تودي أقوى يهن كودي dowladahoodii isbitaaladoodii qalabkay diyaariyeen ilaahay baan kugu dhaariyay bal u fiirso waa makhluuq yar oon ishu qabanaynin oo ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid ah culimada ku takhasustay waxay leeyihiin cilmiga fayruusaadka fayraska corona oo dhan ee adduunka baabi'inaya haddii inta la soo ururiyo koobada yar ee laga cabo bebsida laga cabo koobada haddii lagu wada rido fayraska corona oo dhan koobadaasi ma qaadayo
koobadaasi ma buuxinayo ilaahay baa ku dhaariyo fiirsada kooba yar caalamkii mashriq iyo maqrib buu gilgilay waana makhluuq yaroo kulligii haddii la isu keeno meel yar aan buuxin karayn war aayadda ka weyn aaway calaamadda ka weyn aaway qudrada ka ballaadhan aaway ka waran allaha tabaaraka wa tacaala keenay hadduu cuquubo ka weyn keeni lahaa fayraskaa yarkee tacbaanka ee makhluuqa wax ka weyn hadduu ku sallidi lahaa maxaad fili lahayd haddana maca daalika kibirka bini aadamka iyo isla weynankiisa waa la garowsan la'yahay allaha tabaaraka wa tacaala waana la qiri la'yahay laakiin annaga muslimiinta ah iimaan baa noo siyaaday ilaahay qudradiisa iyo awooddiisoon rumaysnayn baan haddana iimaan sii siyaadsanay allah tabaaraka wa tacaala awoodda uu leeyahay adduunkan hadduu damco hal mar inuu rogi karo ilbidhiqsi iyo ka yar inuu baabi'in karayo tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisana raalli baynu ku nahay haddana maca daalika inaynu dadaalno oo xaaladani nolosheenna wax ka beddasho dhanka wanaagsan isu beddela waa laga maarmaanay sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaa'i waalmursaliin allahuma salli wasallim وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من الوباء والفتن والبلايا يا حي يا قيوم ونعوذ بك من سيء الأسقام يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفتن اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن يا أرحم الراحمين نعوذ بك من سيء الأسقام والأمراض والأوجاع يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك